السلام عليكم صاحبيال سو dhawaada meel walba dunida ka joogtaan maanta waxaynu eegi doonaa insha Allah commentiyada iyo postiyada ugu yar fiican ama ugu yar xisaab badan leh soo dhawaada waxaynu raashin ka bixin doonaa insha Allah ninka la yiraahdo Shafir nin comedian ama nin jaristo Hindiya ka yahay sawirkooda wuxuu yiri soo dhigay sawirkan gadaasha dhinaca ka muuqda. Hey y'all, come look at this. soo dhigay AC ama qaboojiyaha gudaha lagu dhijiyo dibadda lagu dhijiyo waxa ku soo hoos qoray commentiga markaad dhameysato engineerka online markuu dhameysato classka online markuu dhameysto sama dhacsi uu leeyahay dibadda aad waxay AC ya nigaas uu qosliyo wallahi commentiga labaad wuxuu yiri wuxuu soo dhigay post hab quraanshada qura waxay noolaan kartaa 9 sano ay noolaan kartaa hadii la yiraahdo 9 sano dhinaca kale oo ka eegay moogti single kale guursan buu ay soo jeedaa marka wuxuu yiri bal ka warantii guursatayna inta noolaan marka odayo ya odayo horta wallahi waa iga yaabay ninkaas wuxuu soo dhigay post markaa wuxuu yiri 1937 ayaa ciyaar kubadeed ayaa waxa kala gooyay buu yiri ciyaaryahan kala gooysay goolkiibarku wuxuu dhex taagnaa garoonka dhexdiisa goolaha wuxuu dhex taagnaa 15 mir soo weyn wax dhacay meesha dhacay in ciyaarta loo baajiyo lagu kala dareeray ma ogi ayuu leeyahay waxa uu comment wuxuu dhigay 3 saacadood fadhiyay qolkii taxanka lagu galayo ama hoolkii taxanka lagu galayo anuu waxba garanay baan midba garanay bas is dhex fadhiyay meesha nigaas waa wallahi funny ya sawir mucjisa kale soo dhigay wuxuu yiri ma garanayo cid yahay buu leeyahay qof makaanika cid yahay ma aqaan laakiin waxaan ogeyn uu leeyahay aan huwa in waxaan ku qofka iska la gabar tahay doona gabadh bas kala dara ya iskala soo wax lagu shaqeeyo aadkii wajida gabadh bas ka dhacdhicaysa ya saasi marka sawirka ku xiga wuxuu yiri soo dhigay marka mobilada lagu xidho codka lagu xidho ay soo dhigay oo kan dhinacay ka muuqda oo muxuu qofka codkiisa aqoonsanay marka ku xidhato marka wuxuu yiri wuxuu soo dhigay marka post codka xidhashadu waa habka ugu fiican xidho marka commentigu soo qoray marka commentigu soo qoray mar aan ku xidhay mobilkayga cusub bas wiil aan u dhigay cod ayaa waxa agteeda soo mareen ba agteeda ka qaydiyay buuri ay tanana carray waxa marka meesha ku xidhmay codka iiga ku xidhay marka imika hatta aan ilaa imika waxaan diiday aygi suumolkayga ugu furade ilaa isaga ku xidhay codkiisa ku xidhmay soo dhigay kale oo dhinaca sawir dhinaca ka muuqda wuxuu yiri qofka sawirka laga qaaday waa kan ka qaaday photography waa kan kiis taxaad qaaday miyada ayuu intuu soo qoray kiis taxaad mi xagana wuxuu soo dhigay post 10 year challenge amba xujo 10 sano ay soo dhigay kadib wuxuu yiri waxa kale soo wiil yar ayuu soo dhigay soo weynaado nin weyn noqdo soo dhigay waxaan dhagiisi weynaa earphone gashaday marka comment wuxuu qoray waxaad iska saartaa fadlan earphone iska saar waxaan doonayaa in cadeeye in wax cadeeyo ayaan rabaa iska saar fadlan earphone adoon dhigiisa check gareeyay wuxuu soo dhigay kale sawir soo dhigay marka soo dhigay gabadha soo dhigtay waxa wuxuu soo dhigay waxa commentiga post waxa uu leeyahay marka wuxuu qoriyay seetan fadlan buu yiri waxa tiri aynu waqti siino ama waqti la qaadano saan u jeclaano una ixtiraamno leelada sida hooyooyinka kale una ixtiraamno anu jeclaano waayo waxayna siiyaan caano u leeyahay hoos wuxuu soo qoray commentiga laadu wuxuu leeyahay laadu inama siisay naga caano caana laakiin ka qaadana caano iyo caano siiso tawaarna caano ma siiso in adaa caana ka talisto ka qaata
sawir uu soo dhigay kale haddana ninkan waa iga yaaginiyo oo soo dhigay ma ogtahay buuri posti ah qofkii ugu horeeyay computer programmer ah gabadh baheed hoosta wuxuu u soo qoray saaxiibka hoosta wuxuu ku soo qoray that is why waa sababta computer language ama luqadda computerku aad u adag tahay lagu soo qoray waa lama fahmay buuri mogta sawir wuxuu soo dhigay ka ninkaas waxa ninka community waa community walaal aad u faniya waxyaabo kale oo